guddida qaran ee u diyaargarowga iyo ka hortagga xanuunka fayraska ee Somaliland oo maanta ka warbixinayay waxyaabihii uu qabsoomay iyo shirar maalmihii u dambeeyay u socday ayaa sheegay in aanay jirin haba yaraatee cid ay ka shakisan yihiin oo ay u qabteen coronavirus sidoo kale waxay sheegeen guddidu in maanta laga bilaabo ay ciidamada booliska ku sii deyn doonaan suuqyada waaweyn ee magaalooyinka si ay u kala dareeriyaan dadka ku kulma goobaha gaarka ah sida goobaha lagu qayilo ee kolayada jaadka iyo maqaayadaha ugu horreyn waxaa halkaasi hadalka iska daba qaatay wasiirro ka mid ah xukuumadda Somaliland iyo dhaqaatiir ka tirsan guddidaasi waxaan rabaa inaan ogaano koow xanuunku hadda marka eegtaan gobolka adduunka marka la iska daayo oo tiraahaan waxa maraya 330 oo qofku ku dhacay dadka u dhintay aad u badan yihiin qaarad maanta adduunka aan ku jirno ma jirto inaga markay noqoto Somaliland maanta hal case oo aan oran karo ka shakisanahay ama xanuunkaasi uu hayaa oo aanu cadaynay ma jiro marka inta loo ognahay dalkeenu waa nadiif laakiin Ethiopia jooga oo Djibouti jooga oo Kenya jooga talafteedu waxay sheegaysaa khatartu inay soo kordhayso wadamada China talaabooyin bay qaadeen ama talaabooyinkaasi ha noqdaan isku socodka dadka iyo alaabaha oo la xadiday ama ha noqdaan talaabooyin gudaha ay ka qaadeen oo sidii lagu awaamirtii talooyinka aynu bixinay taas markaa waxay keenaysaa in lafteedu inaynu talaabooyin hor loo cusub qaadno dadka ummadda badbaadadeeda ka mudan in hal qof la ixtiraamo taas waxa weeye waa go'aan in jeedinayno maanta wixii laga bilaabo oo ciidan baa soo mari doona mafashada qaadka annagana yaa rag waaweyn xadhigooda nologu imanino loodhanin hadda annagaa ka mid ah annagadan laftayada kuwa qaylaa ka mid ah waa laba haddii aynu mamnuucnay oo aynu joojinay iskuuladii ilaa iyo hoose dhexe ilaa iyo jaamacad ilaa iyo dugsiyada sare ilaa iyo kuwa gaarka loo leeyahay inaynu mamnuucnay oo aynu isnidhi daayirtiinnu iskuul walba bulsha isugu imanaysa kala yareeya waxaa haddana iyaduna la mida haddaynu ardaydii soo fasaxnay oo makhaayadihii wada fadhiisanno waxbaynu kordhin hodheel cunto laga cunayo mooyaane makhaayadihii la fadhiisanayana waa mamnuuc ciidanku way wareegayaan dadka way ururinayaan hadhowtay aanay dhibi nagaga iman waxba idinka qarin mayno wax alla wax weyn oo xukuumaddu dhaqaalaha waddankana waa loogiyo inta dawladdu qaban kartaa waa wax yar runta in laydiin sheego inaannu idiin sheegno ma jecelin dawladdu waxa ay qaban kartaa waa wax tirsan oo limited ah oo aad iyo aad u yar haddii xanuunkaasi uu dilaaco ilaahayna kuma keeno sidaa daraaddeed waxaannu idin leenahay fariimaha dhegaysta si aynu uga hortagno oo aan cidina ugu dhibtoon inaynu kaga badbaadno xanuunka oo aan sii xoojinaya tii wasiirkii arrimaha gudaha dugsiyadii haddaynu fasaxnay oo aynu xidhnay fasax maaha haddii aynu xidhnay waxaynu u xidhnay inaanay isu imaan ardaydu ama aanay macallimiin iyo arday isu imaan dee meel kalena maxaad u malayn iskuulladii baa la fasaxay oo la xidhoo layidhi laysu imaan guryihiina wax ku barta garoon iyo suuq carruur isugu imaanaysa meel ku shiraysaa ma jirto ma jiri karo macallin ay intuu waalidu yeedho odhanayo qaali carruurtayda guriga ugu dhig oo aynu ka faa'iideysan weyno dardaaradii Nabi Maxamed sallallahu alayhi wasallam iyo culimada iyo dhaqaatiirtu ay sameynayaan xanuunkaas inuu nahaleeyo waa shaki la'aan qofku ma aha inuu dhayalsado qofka soo ku dhacay laakiin waxa laga badbaadi karaa sida la sheegay waxa weeyaan iyadoo laga digtoonaado hadduu dhacana Ilaahay la baryo oo loo sabro magaalooyin baynaan lahayn isumayna dhaweyn casharka iminka aynu haynaana casharka kaliya aynu haynaa waxa weeyaan cudurka sida looga hortagayaa waa kala fogaanshaha weeye dadku kala fogaanayo ee aanu isu dhawaanayn waayo cudurkani wuxuu u kala gudbi karaa dadka isku dhow taana waxaan arkayaa inkastoo aynu maalmahaba ka hadlaynay haddana waxaan arkayaa bal iska daacid kale oo intiina saxaafadda ee warkan gudbid lahayd inaynaan weli qaadan أحمد نور عيسى تلفزيون كبلشو هرقيسة